السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار شرفت المال كست أدنى كجوكتان كسو دواد يوتيوب جانال كيغا السرطة قروح ذا وولاشين زينب maantana insha allah biidni illaahi kariim waxaan ka hadli doonaa faa'iidada ay leedahay vitaminka loo yaqaano vitamin E khaasatan maqaarka faa'iidada ay u leedahay vitamin E waxaa jirta iyadoo noocyo badan iyadoo capsule ah oo sida aad sawirka ka aragtaan oo yacni saas u goobin u ah oo markaad duleelisana saliid yar baa kasoo baxaysa sidoo kalena waxaa jirta iyadoo caagada yaryar ku jira oo macnaha lasoo diyaariyay oo vitamin E oil ku qoran yahay iyadoo serum ayaa jirta faa'iidada u horeysa ee vitamin E maqaarka u leedahay waxaa ka mid ah inay maqaarka nafaqeyso isla mar ahaantaasna ay kasoo qoyso gunta ama lafta gudaha iyadoo maqaarka ka dhigayso maqaar oo qoyan moisturizing siinaysa macnaha maqaar jilicsan oo softi ah oo dhalaalaya oo maasha allah iyadoo ka dhigayso haddaba si aad u heshid nafaqadeeda dhammaystiran maalintii waxaad isticmaashaa 2 jeer adigoo duleelinaya kabsuulkaas yarka ah saliida ah oo gacantaada ku shubayo kadibna wajigaaga ku masaaj gareenayo 2 jeer maalintii habeenkii subaxdii hadii kalena oo hadii aad haysatid iyadoo caagad saliida ku jirto oo kala dhowr dhibic gacantaada ku dhibci sidaa daraadeedna wajigaaga ku masaaj garee maalintii 2 jeer haba sidii ku fudud ama serumkeeda hadii aad haysatidna waa okay isla same saas baad u isticmaali kartaa inaad macnaha wajigaaga ku masaaj gareyso maalintii 2 jeer oo aad saas u marmarisid wajigaaga faa'iidada labaad waxaa waaye in ay skinka ka baabi'iso scaris wax loo yaqaano nabarka finka badana qofka markuu wajiga fin yeesho oo kaleeto oo ku sii xumaado finka oo yacni scaris ku noqdo laakiin scariska oo kale ayay soo baabi'isaa wayna soo khafiifisaa iyadoo isla mar ahaantaas lafta ama gunta kasoo baabi'inayso dhaawacii ka gaaray skinka kasoo qoynaysa kana dibna usoo nooleysiinaysa ama dib usoo repair ku sameynayso ayadoo isla mar ahaantaasna ka hortagayso inuu maqaarkii nabarkii kusii xumaado ama kusii weynaado tartiibna ugu dambeyn skinka ee kasoo dhigta skin liisha ah oo isku eg ama aan dhaawac lahayn vitamin E faa'iidada kale ee maqaarka u leedahay ama faa'iidada saddexaad waxaa waaye inay daawo u tahay xanuun maqaarka ku dhaca oo loo yaqaano dermatitis taasoo ku sababta maqaarka xaalad inuu yeesho maqaarkii micnihii gudguduud uu maqaarka ku casaado ku cuncuno ku balbalo ku bararo isla mar ahaantaasna inflammation uu yeesho ayay ka daaweysaa haddii la isticmaalo oo kale ama la mariyo wayna ka baabi'isaa faa'iidada afaraad waxaa waaye in ay la dagaalanto gabowga wejiga inuu yeesho laablaab ama duubduub haba midkaad u taqaano isla mar ahaantaasna wejiga ka dhigto weji yar oo qofka marka dambe maqaarkiisa inuu taagmo ayadoo la dagaaltamayso dhibaatada ay keento ama wejiga ku keento hawada oo kaleeto sidoo kaleetana iyadoo collagen-tana kor u qaadaysa ama boost gareynaysa collagen-tana waa maadada ama borotiinka maqaarka siiya elasticity maqaarka feereysa oo taagta isla mar ahaantaasna qofku uu markaas ku noqonayo halkaas qof yacni wejigiisu taagan yahay ama yacni yaangi uu ku noqonayo habeenkii markay tahay waxaa sameysaa inaad vitamin E-ga soo qaadid wajigaaga ku masaajay hal xabo oo kale intaad duleeliso saliidda wajiga ku masaajay ama haddii saliidda kale aad haysatid oo dhalada ku jiro oo kalena sidaasoo kale dhowr dhibic inaad ku masaajaysid wajigaaga kadibna aad ku seexatay habeenkii subaxdiina aad iska dhaqid biyo diiran qodobka u dambeeya oo ah qodobka 5aad faa'iidada ay leedahay vitamin E-ga waxaa ka mid ah inay bushimaha ka qaado qalqaleelka jacdadka sidoo kale tan madowga ama dead skin inay ka qaado isla mar ahaantaasna ka dhigto bushimo softi ah jilicsan guduudan ama cas ama pinkish ah oo isla mar ahaantaasna dhalaalaya haddii habeenkii oo kale taad marsato maalintiina sidoo kale aad marsato
dhammaantiin aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad fiidiyooga u daawateen. fiidiyoogeena maanta intaas ayuu ku egyahay. fadlan haddii aad nagu cusub tahay ha hilmaamin, hana ilaawin in aad subscribe ka saartid, sidoo kaleetana sheerta iyo laagta asxaabtaadana la wadaagtid, sidoo kalena aad fariin inoo dhaaftid. dhammaantii akhyaarta hore ila joogto waxaan idin leeyahay dhammaantiin aad ayaad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.